السلام عليكم قرابة وسلامتهين من البقى joogtaan kusoo dhawaada beertayda. Today's video wuxuu ku saabsan yahay baradho aan guriga beertiisa ka guranayo. Intii aan baradho aruuris intaan gelin waxaan rabaa inaan a little bit update inaan isiyo mise war cusub inaan ila share gareeyo greenhouse dhisooya and inshallah let me show you quickly. Okay qaraabo hadeertaana waxa soo fariistay waxa soo dhiga I should say bacyaal madmadow or landscape fabric lahaa cooska iyo the weeds iyo waxyaalaha badan oo ma arkino aad rabin inuu kaaga soo dhaxbaxo your greenhouse aan ma arkino hadeertaan soo diyaariye. Tomorrow morning inshallah waxay imaanayo the guy who's going to dhisi lahay oo rakibi lahay the greenhouse and then in a different video ka hadli doona marka greenhouse ka marka la dhiso ka hadlaya inshallah qiimaha inta uu ku qaatay size ka uu yahay iyo waxyaalaha uu isticmaali doona hopefully. sheekada baradhada ku soo laabana qaraabo inshallah hadeertaan waxa arkaysiin caagado labadan caag madmadow meeshaan igu yaalo aan hadeertaan baradho ka gurnaya. So this video na waxa ku arki doonteen inshallah two things anoo ku hadlaayo oo nitusaayo and baradho anoo dhulka ka guranayo oo caag aan u isticmaalin iyo anoo caagadahan ka guranayo waxa arki doonteen inshallah size-ki baradhada inay kala duwan yihiin and aniga horta in the future hadaa beernaay xataa badana waxa u badnaan doona inaan directly dhulka inaan ku beero inshallah. baradhadii hore oo maleynaa mis arana mid qaarkood way bollaayaan meesha ku dhex dhimanayaan but yeah ani horta badanaa waxaa arkay markii oo dhulka oo you know marka dhulka aad ku beerto inay ay fiican tahay baradho waaweyn ay ka soo baxdo marka caagadaha aad ku beero I think the sizes of the potatoes kuwana ma ugu waaweyn yihiinba laakiin anina nutrition fiican ma siinin biyo toos uma siinin sometimes qofka you know oo wax beeranayo laga yaabo inuu qaladka badan u sameynayo but yeah masha Allah. kuwana compost ku ridaya sida carro nafaqo iskugu bedelaan. ma ogtihiin horta in aan beeran karno baradho aan suuqan ka soo gadanay oo u talagalay inaan maalinkaas akarsano baradhooyin waxaan tusayaa insha Allah ayagoo wax markay ka soo baxbaxaan ee ku sheegayaan inay diyaar yihiin inaan beeran karno. okay qaraabo halkan waxaa yaalo sida aan baradhada u keedsano adis marka suuq ka soo gadano and today waxaan rabaa inaan tuso baradhada markay guriga cabaar ay ku taalo sidaan u ekaanaysaa duqduqay soo noqonaysaa at least the skin becomes different and so anaka marka baradhada soo gadano bacyaashaan suuq uga soo gadanaysaa and then waxa jecelnaa inaan caagadahan ku ridno mostly because waa arkaysaa wixii baradhada hadday ku hartay inta ku hartay in kaleeto so markay baradhada cabaar ay taalo ee badanaa waxay anaka meel iftiinna saan uma dhigno we put it somewhere oo iftiin badan lahayn armaajada hoosteeda you know places like that but badana when you baradho markay saan u eg tahay it's ready to plant. waxaa hadeertaan tusaaya baradhadaanayti koo inta aan beerin sida dhulka u diyaarinayo meel walba aan baradhaan ku beero horta carrada loose aan ka dhigayaa wax carro oo culus oo dhulka ku dhegan ma ku beeri waxaan u jeedin hadeertaan waxaa sameynayaa nafaqa ku shubaa nafaqadaanaytana waxaa waaye nafaqo oo all vegetables oo isticmaalo so nothing special oo baradho kaligeed loogu talagala ma jirto. so hadeertaan waa aragtay meeshaanayta laba saf oo baradhaan ku beeray baradhada aan beerayayna waxaa waaye seed potatoes sidaana u eg tahay waxaa waaye baradho loogu talagalay in oo la beero waan tusaaya gudaha markaa gal insha Allah baradhada oo suuqa aan ka soo gadanay oo laga rabo inaan suugada u isticmaalno ayadana taas waa la beeri karaa markay waxaanay soo yeelato and these are called eyes so ayagoo badanaa hadeertaan meeshaan iigu jiro qaarkooda halkan ku beeri doona insha Allah qaarkoodna birtaas wareegsan ma arkeen oo taas madow hoosteedan insha Allah rabo inaan meel kale aan ku soo beero. meesha hadeertaan aan nafaqeynay waxaan ku beeray baradhooyinkan tusaayay and 9 bari ka bacdi halkaanayta waxaan tusaaya baradhadii sida ay ugu soo baxday markaan ka hadlaayo baradhada dhulkan ku beeraya ee baradhada caagan ku beeraya nooca hadeertaan meeshaan ka gurnayo waxay ii tahay inaan dhulka toos ugu beerayo alwaaxyadaanayta carrada bas leehayaan maahane carradaanayta dhulka u furan tahay
dhulka wax oo celinaya male oo ma arkino bardhada iyo xididadeeda dhulka sii galayaan wax kala celinaya male so that's why I like badana waxaan tusaya insha Allah bardho waaweyn meeshan ka soo baxayso compared to marka caaga madowga ka gurnay wow wow ما شاء الله كوكو وينك سعود ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لو ذا نقيد بعروة والله ما شاء الله